xaalad adag ayaa ka taagan xeebaha bariga ee Puntland halkaasi oo la sheegay inay iska soo galeen maraakibo iyo sidoo kale doomo shisheeye kuwaas oo la sheegay inay ka kaluumeysaan halkaasi sidoo kalena kheyraadka dhulka Soomaaliyeed halkaasi ay kala baxaan iyagoo sidoo kalena la sheegay inay caqabad ay ku noqdeen ganacsatadii xeebta Puntland ay ku ganacsan jirtay kuwaas oo la sheegay in halkaasi ay ku kaluumeysan jireen isla markaana kaluunkaasi la geey jiray guud ahaan gudaha dalka Soomaaliya xaaladda waxa kirantay ayaa waxa ka cawday dadka kaluumeysatada halkaasi ka iyagoo sheegay in doomanka iyo maraakiibta shisheeyaha ee halkaasi jooga isla markaana shatiga ka heesa madaxweyne Saciid Dani ayaa la sheegay in arinta ay lug ay ku yeesheen qoyska Saciid Dani kuwaasi oo la sheegay in maraakiibtaasi ay soo galiyeen xeebaha Puntland arinta ayaa ku soo ziyaaday maalmihii ugu dambeeyay gaar ahaan labadii maalmood ee la soo dhaafay waxaa la sheegay in qoyska Saciid Dani ay saameyn xoogan ay ku leeyihiin dawladda Puntland kuwaas oo sidoo kale la sheegay in xeebaha Puntland iyagu gacanta ay ku hayaan hadba markabkii ay doonaanba ay soo galiyaan xeebaha Puntland kuwaas oo la sheegay xitaa aan la ogeyn waxa ay ka damacsan yihiin iyo ujeedada dhabta ay ka dambayso maraakiibta qaar ee soo galay ee shisheeye ayaa la sheegay inay yihiin kuwa u adeega danaha shisheeyaha dalka ay ka yimaadeen isla markaana la xusay inay wateen qalab aan la ogeyn waxa uu yahay iyo sidoo kale halka ay ka keeneen ilaa hadda aan la ogeyn sida rasmiga ay wax u jiraan balse waxa la xaqiijiyay oo la sheegay in maraakiibta shisheeye iyo doomanka halkaas soo gala aan ogoleen kaluumeysatada xeebaha Puntland ka kaluumeysa markii ay isku dhaceen kaluumeysatada iyo sidoo kale iyo maraakiibta shisheeyaha iyo doomanka ayaa sheegeen in qoyska madaxweyne Saciid Dani ay ka heesaan ogolaasho haddaba ma ahan dawladda Puntland waxay sheegeen qoyska Saciid Dani inay ka heesaan fasax xoogan taas oo ah inay halkaasi ay ku dabaashaadi karaan ujeedooyinkooda iyo danahooda gaarkaana ay ka fushaan Puntland hore waxaa looga eedeeyay inay gacan saar ay la leedahay Israa'iil iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta taas oo la sheegay in Israa'iil halkaasi ay ku nidaamka difaaca hawada iyadoo sidoo kalena ay ugu dan lahayd in lagu beegsado qaar dalka Yemen iyo sidoo kale Suudaan waxaa la sheegay in dawladda Imaaraadka halkaasi xeebahaasi ay ku mariso qoriyaha iyo hubka ay geyso ee dalka Suudaan isla markaana kuwa burburiyay ee dalka Suudaan ay ku taageerto si ay u burburiyaan halkaasi dawladaha kala ah Suudaan iyo sidoo kale Yemen ayaa horey wacad ugu maray isla markaana u dhaartay Soomaaliya gaar ahaan Puntland iyagoo sheegay in halka ay tahay halka masiibada dhabta ay ka socoto maraakiibtan iyo doomanka shisheeye ayaa looga shakiyay inay yihiin amaba ay ka dambeeyaan kuwa Israa'iil ay leedahay oo halkaasi ay soo galeen sidoo kalena ay wado sahminteeda xooganaa sida ay u weerar culus ay ugu qaadi lahayd Yemen ee Xuutiyiinta iyo sidoo kale hubab ay u gaarsiin lahayd mucaaradka iyo kuwa burburiyay guud ahaan ee dalka Suudaan isla markaana ah cadowga ummadda ee dalkaasi inay halkaasi ay fariimahoodii iyo sidoo kale hubabka ay halkaasi ugu gudbiyaan qoyska Saciid Dani ayaa weli ka hadlin jawaab rasmi ah ka bixinin arinta lagu eedeeyay inay iyagu ay ka dambeeyaan sidoo kalena fargelinta xoogan ay ku hayaan madaxweyne Dani ayaa laftiisa ka hadlin ilaa hadda waxa lagu eedeeyay qoyskiisa inay ka dambeeyaan inay gudaha Puntland xeebaheeda ay soo galiyaan maraakiib iyo sidoo kale doomo shisheeye aan la ogeyn waxa ay ka dambeeyaan tani ayaa waxa ka uga cawday kaluumeysatada degmada Xaafuun ee gobolka Bari oo sidoo kale ay sheegeen inay maraakiibtan oo shati kaluumeysata ay ka heesato maamulka Puntland ay sheegeen inay caqabad xoogan ay ku noqdeen maxaa iska quseeya maraakiib shisheeye ee ka yimid meelo kale iyagoo sidoo kalena aanu shati ka heesan dawladda federaalka Soomaaliya taa bedelkeeda ay shati ka heesaan dawlad ka tirsan isla markaana dawladaha xubnaha ka ee Soomaaliya ay ka mid tahay Puntland inay shati ay ka qaataan badda gudaheedana waxay doonaan ay ku sameeyaan waxay ku soo aadaysaa xilli dhawaan markii ay qabatay kadib markabkii Turkiga oo lahaa dawladda federaalka Soomaaliya isla markaana ay cabaar ay isku anaaniyeysatay inay heesan doonto markabkaasi ilaa lagu ogaan doono waxa rasmiga oo siday kadib dawladda Turkiga iyo dadaalo xiriir la sameeyay Puntland ayaa lagu sii daayay markabkii Turkiga
taa oo la sheegay in Israa'iil iyo sidoo kale Imaaraadkaba cabsi xoogan baqdin xoogan ay ku abuurtay isla markaana halkaasi ay geeyeen maraakiib cusub iyo sidoo kale dooman shisheeye ajnabiga kuwaasi xitaa rakaabka saaran ay u muuq amaba dadka sida ee maraakiibta iyo doomankan ay sidoo kale ay u eg yihiin dadyo military isla markaana ay imikaasi u howlgalaan si aanu iyagu hubaysaneen taa ay u joogaan la sheegay dadka qaarna ay ku tilmaamay inay yihiin jaasuusiin isla markaana halkaasi laga ilaalinayo Puntland laba mid ayaa ku cabsi qabtaa ee dowladda Puntland oo la sheegay in ay keen sababaha ka dambeeyay sidoo kale qoyska ee Puntland qoyska Saciidani halkaas inay maraakiibta ay keenaan midda koowaad waxay tahay in dowladda federaalka Soomaaliya ee qoyska Saciidani ay ugu baqeen in madaxweynahooda xilka looga tuuro halkaas sidoo kalena lagu maxkamadeeyo Puntland iyagoo halkaas lagu dhisayo maamul cusub isla markaana dhanka badda laga soo galo arinta labaad ayaa lagu sheegay in qoyska Saciidani maadaama iyagu ay ka mid yihiin walaalkoodana ama qofkooda uu yahay madaxweynaha halkaas ay isaga damaashadaan oo waxa la waxay doonaa ay isaga sameeyaan xeebaha Puntland iyagoo sidoo kale waxba aan ka galin cabashada ee dadka kalluumaysatada